Sheekada 13aad Axdigii Ilaahay la galay reer Israa'iil. Kadib markuu Ilaah dhaafiyey badda cas dadkii reer Israa'iil, waxay sii mareen saxaraha buuraha leh ee lagu magacaabo Siinaay. Buurtani waxay ahayd buurtii uu Muuse ku arkay kaynta gubanaysa. Dadkiina waxay teendhooyinkoodii ka dhisteen buurtaas hoosteeda. Ilaah wuxuu Muuse ku yidhi iyo dadkii reer Israa'iil, haddaad aniga i adeecdaan oo axdigayga ilaalisaan, waxaad noqon doontaan dad aan si qiimo leh u ilaaliyo, wadaaddo boqorriin ah iyo qaran quduus ah. 3 maalin kadib, markay dadkii isku diyaariyeen inay cibaadaystaan, ayaa Ilaah buurtii Siinaay dul yimid. Onkod iyo hillaac oo daruur weyn leh ayaa buurtii qabsatay, oo waxaa yeedhay buun codkiisu aad iyo aad u weyn yahay. Muuse keligiis ayaa loo diray inuu aado buurta dusheeda. Kadib, Ilaah ayaa Muuse u soo dhiibay axdi kuna yidhi, anigu waxaan ahay Ilaah, Ilaahiinnii idinka soo badbaadiyey gumaysigii Masar. Ha u cibaadaysanina ilaah kale oo aan aniga ahayn. Ha samaynina asnaam oo ha u tukanina. Aniga ayaa Ilaahiinna ah oo waa inaydan lahaan ilaah kale. Magacayga ha u isticmaalina si ixtiraam darro ku jirto. Xasuusta inaad maalinta Sabtida ka dhigtaan maalin quduusa. Shaqadiinna qabsada 6 maalin ee kale, laakiin maalinta Sabtida waa inay noqoto maalin nasasho, si aad aniga ii xasuusataan. Aabbahaa iyo hooyadaa baari u noqo. Waa inaadan wax dilin, waa inaadan sinaysan, waa inaadan waxba xadin, waa inaadan deriskaaga markhaati been ah ku furin, waa inaadan damcin guriga deriskaaga ah, waa inaadan damcin naagta deriskaaga ama addoonkiisa ama addoontiisa, ama dibigiisa ama dameerkiisa ama waxa deriskaagu leeyahay oo dhan. Kadib Ilaah wuxuu qoray 10 amar, oo wuxuu ku qoray dhagax dushiis, wuxuuna u dhiibay Muuse. Sidoo kale Ilaah sharciyo fara badan oo la raaco ama lagu dhaqmo ayuu dadkii siiyey. Ilaah wuxuu ballan qaaday inuu barakayn doono oo uu ilaalin doono iyaga haddii ay dadku raacaan sharciyadan, laakiin haddii ay ka leexdaan sharciyadan, inuu iyaga ciqaabi doono. Ilaah wuxuu u sheegay in Israa'iiliyiintu sameeyaan teendho weyn, wuxuuna u sheegay sida ay u samayn doonaan teendhada. Teendhada waxaa loo bixiyey teendhada kulanka, waxayna ka koobnayd 2 qol oo kala soocan, oo daah weyn baa u dhaxeeyey. Lamana ogolayn inay qof gasho qayb ka mida teendhada marka laga reebo wadaadka ugu weyn mooye. Qof kastoo buriya sharciga Ilaah ama dambaabo, waxay ahayd meel uu keeno neef xoolo ah si loogu sadaqeeyo Ilaah hortiis. Wadaadka ugu sarreeyo ayaana ku qala meesha allabariga. Dhiigga wanqalka ayaa lagu dembi dhaafi jiray dembiga qofka dambaaba. Dhiiggaasuna wuxuu qofka ka kaxaynayay dembiga, oo Ilaah agtiisa wuxuu ka noqonayay mid daahir ah. Ilaah wuxuu doortay Muuse walaalkii Haaruun iyo faraciisa inay noqdaan dad wadaaddo ah. Dadka oo dhan waxay aqbaleen inay sharciga Ilaah u hoggaansamaan oo Ilaahay keligiis ay caabudaan. Maalmo badan kadib, Muuse ayaa tegay buurta Siinaay dusheeda si uu ula hadlo Ilaahay. Dadkii ayaa aad ugu daalay sugitaankii Muuse intii uu ku maqnaa buurta dusheeda. Waxay Haaruun u keeneen dahab, waxayna ka codsadeen inuu ka sameeyo sanab ay caabudaan. Kadibna Haaruun wuxuu dahabkii ka sameeyey sanab u eg weyl. Dadkii ayaa waxay bilaabeen inay caabudaan sanabka, kadibna allabari u sameeyaan. Ilaah aad ayuu uga carooday dembiga ay sameeyeen, wuxuuna damcay oo qorsheeyey inuu baabi'iyo iyaga. Laakiin Muuse ayaa iyaga u duceeyey, Ilaahna waa ka aqbalay ducadii Muuse. Markuu Muuse ka soo degay buurta dusheeda,
wuxuu arkay sanamkii, aad ayuu uga xanaaqay, wuxuuna burburiyey dhagaxii uu Ilaah ku qoray 10 amar ama sharci. Kadibna Muuse wuu jajabiyey sanamkii, budadiina wuxuu ku daray biyo si ay dadku u cabaan biyaha budada leh. Kadibna Ilaah wuxuu dadkii u soo diray balaayo oo waxaa dhintay dad badan. Muuse buurtii Siinaay ayuu fuulay mar labaad oo Ilaah ayuu baryey si Ilaah uga cafiyo dembiga ay dadkiisu galeen. Ilaah wuu maqlay ducadii Muuse, wuuna cafiyey dadkiisii. Muuse wuxuu dib u qoray 10kii amar ama sharci ee uu burburiyey. Kadib Ilaah wuxuu ka kaxeeyey dadkii reer Israa'iil buurta Siinaay, wuxuuna u waday dhulkii loo ballan qaaday iyaga.